السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أقصد هذا ولكن مع حسن وإذا لما كلا كسر هذا الصومالي أكاديمي إن شاء الله تعالى هذا هاي نصرة عشر كين عشر دين جافا عشر كين نقصد دم بيوحي هاي سيدي لورن جرايو أو فيرست بروجرام إن شاء الله تعالى عشر كين عشر كيلو لميدي هاي لكن سيدي لو استعمالا يعني سيدي لو استعمالا IDE أما واحد بروجرام كان لو رن جرايو النوع كلا يكلي بسنكيور استعمالنا هذا نوع استعمالنا وحي اللي يراد النوتباد نوتباد وحمينا قفل بويا غانا نوتباد وحلو استعماله قفكي قرال قراءة كلا كمبيوتر انت بدون وسيلة شراء كمبيوتر والبا بس كديفول مو بهنا إذا كون installation وحاس مركاد وحي استعمال نوتباد أنا وكقرين جافا كود حكان جافا كود مركاد وكقرنا جافا كود كاسان وحرم إنه كوران جرينو أما كو كمبال جرينو أنا جو استعمالين وحلي CMD أما command line كاسو سيجانا أو كمبيوتر كوتشرا so pay with me إلى سعانية مركو هورتا marka hore waa inaan notepad furtaa kadib aad filekan aad save garaysataa aad ku save garaysataa meel aad adiga ogtahay hadhow directionka email aad wax ka soo saari karto desktopkan ku save garay anigu tusaale ahaan waxaan u bixinayaa salaam sahadaati aan sheegnay laakiin hadda waxaan raacinayaa .java si uu maxaa yeelay sidii uu compiler ku ogaaday inuu fileka aan sameynayo uu yahay java okay hadda marka hore waxaan qoraynaa marka class kan qoraynaa public class name salam class kan name kan iyo file kan name kiisana waxa waajib inay isku magac ahaadaan isan kala qaldamin so then public static void main string نبدي علامة argumentي قوس كحر process full انتو حنلها هنا system dot out dot println قوس كفر نبدي بالفر وحنلها هنا مشان السلام عليكم معلم وسوحر لبدا دبع iyo flaartana soo xir labada dhibic ku soo xir hadda marka waa inaan labadii press xirnaa press koobaad waxa weeyaan classka presska labaadna main methodka slowly insha Allah waan baran doonaa saacad koon kusoo baranaba cashir kale badanna way imaan doonaan okay marka hadda waxaad dhahaysaa file leh save leh marka hadda waxaan rabaa codekan aan qoray aan waxaan rabaa inaan ku compile gareey anigoo isticmaalay waxa la yiraahdo CMD hadda rabto inaad soo furto Windows loga oo keyboard ku taal calaamada Windows ee keyboard ku taal gacantaada bidix qabo iyo R isla qabo waxa ku soo baxayo boxkan yar waxa ku qortaa CMD kadibna enter leh bam waxa ku soo furmay shaashadan madow ah qofkii computer hore waxay u soo isticmaalo u yaqaan shaashadan si loo isticmaalo okay marka shaashadan ku soo baxdo hadda waxa meesha noo yaalo waxa weeyaan direction ama mesh oo hadda joogo CMD inta badan wax ka soo kacaa user iyo Fizami oo ah computerka magaciisa adiga computerka magaciisa hadhow ku soo kacaya computerka magaca u baxsatay unba meesha kaaga soo bixaysa hadhow okay markuu meeshan yahay si aad xasuusato markii aan filekan save gareyn xaga ku save gareey desktopka yes so hadda maxaan rabaa inaan desktopka tago si desktopka loo tago waxa dhahdaa CMD desktop enter you see hada markii hore waxaan joognay Fizami haddana desktop kan joognaa si aan u ogaado filealka desktop ku jiro waxaad dhigi kartaa dir okay waxaana file hadda desktop ka yaalaan aniga waxa naga qoseeyo fileka la yiraahdo salam.java yes waa kana 116 waxa la yiraahdaa salam.java so si aad filekaas u rayn garayso waxaan sameynayaa waxaan leeyahay java compiler java c salam.java wait a second some error is there class string iyo location salam error no soo saaray waan baran doonaa how to go and check the errors okay one error soo saaray class string
meeshaas string la yiraahdo calaamada Soomaaliya meesha ku taalo other oo iska saxo kulaha go back string here weeyaan st change capital ka dhig save file leh save leh come back key ma santahay ku soo celi marka hadda java c salam dot java enter there wait a second boom okay now we are good wax qalad iyo wax ila soo masarin we go back again waxaan ku qoraa java salam markan waxa weeyaan fileka ku dhex jirta yani waxa ku dhex jirta hadda salam.com ku dhex jirta adigoo isticmaalayo cmd marka hadda waxaan leeyahay bas javoy had maadaama ku dhex jirtid filekii salam.java ahaa qoraalka ku dhex jiro isoo bixi okay java salam bas qor enter aan leeyahay waxaan rabaa inuu soo baxo wixii meesha ku qornaa bam maxaa soo baxay assalaamu calaykum macallin you with me little bit complicated but inshallah ta'ala ku celceli wa will be easy okay first waxaan niri waxaad tagaysaa directionka iyo meesha uu kugu jiro fileka aad rabto inaad soo compile garayso ana fileka wuxuu desktopka soo hadda desktopka waa inaan tagaa marka haddii aan rabo desktopka inaan tago cd desktop aan qoraa haddii aan rabo filekaas oo kale inuu meel kale ii sii yaalo waxaan galaa waxaan tagaa cd kadibna meesha aan rabo magaceeda kadibna meeshaan waxaan usoo noqday kadibna java compiler java c kadibna fileka magaciisa oo kaamil ah .java wato kadib hadda marka wax kusoo saaro waasaan kusoo saaro waxaa ku celinaysaa haddana java salam oo markaan wuxuu ku dhex jira filekii meeshaas ku dhex jirtaa markaas wuxuu kusoo printer garaynaa assalaamu calaykum si hore u aragnay iyo clipska cashirkii ka horreeyay oo assalaamu calaykum noogu soo printer garay muraajaca iyo practice garay casharadu way badan yihiin midba mid kasii dambeeya uu kusii sahlayaa kan hadda kii hore unba ku saabsan yahay laakiin waxaa la isticmaalay nooc kale وبالله توفيق أدبا دوما سنتهي داوشة داوتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته